بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ده وفاعل خير مركلة إلى خير بنا إذا السيء ما شاء الله تبارك الله ما أنت وحن ربا ولا ليالو إن لقى يبصدو عنتظى أفي عن مسكحة inay maskaxdaadu korto cuntadan haddaad cuntid xitaa markaad weynaatid ilowshiyo ma yeelanaysid ilaahay idankiis maskaxdaadu waxaan ku yiri wax badan bay kaydinay si fiican ay u shaqaynaysaa maaragtay maasha Allah tabaarakallah maaragtay maskaxda waxaa la yiri sida caloosha u weynaato oo caloosha baruurta u gashay maskaxduna baruurta u gashaa marka cuntadan waxay ka ilaalinaysaa maskaxdaada inay baruur ay soo gasho marka waa alman Soomaalidu waxay dhahaan qodradaas almanka Soomaalidu waxay dhihi jireen lows kana waxa weeye cuntada koobaad waa lows alman ingiriiska lagu yiraahdo almanas kana waxa weeye avocado aad iyo aad u fiican tahay cuntada faadka ah oo qofka every day inuu maaragto oo ku tacuno ay iska fiican tahay wala afar marka loo qaybiyo qayb kamid ah ayaad cunaysaa waa avocado maskaxda aad iyo aad ugu fiican yahay fiiri wax aad maskax moodida ku dhex jira mirahaas weyn waa sida maskaxdii oo kale u samaysan yahay waxa lagu leeyahay maskaxda qofka bini'aadanka ah aad iyo dad baa timaha Soomaalidu timaha marsadaan timaha marskiisa ku dambeeyo cun intaad yara jarjaratid rootiga dhex gasho maxaa tiraahday cun salarka ku jarjaro baastada dhinac ka saaro asaga iyo tamaatada freshka isku jarjaro tamaatadina waa tana tamaataduna waxay u fiican tahay iyaduna maskaxda iyo skinka haddaad tamaatada aad u cuntid skinkaagu qurux ayuu noqonayaa saas u dhalaalaysaa sida ay u dhalaalayso kale maaragtay tamaatada ama yaanyada saa u taqaanidba yaa tamaadho ayaa xagga waqooyiga laga yiraa Soomaalida macnaha goboladooda markaan ku noqdo koonfurtan waxaa laga yiraahdaa maaragtay tamaatana waa la yiraa yaanyana waa la yiraa laakiin yaanya u badanta tamaatana meelaha dhexe oo dhan laga yiraa gobolada dhexe oo dhan marka waxa weeye maskaxday u fiican tahay tamaatada ama yaanyadu waxay kale u fiican tahay skinka maasha Allah tabaarakallah markii ku dhaafin ayada iyo avocado isku jarjaro barqadii kale markii baahi ku qabato waxaan ku yiri jikasi cuntada ka hor soo gado shoppingkaaga ka soo mid dhig ha ka soo tagin gurigaaga iyo ka dhamaan yaanyadu caruurta inta u dhaqdid u dhiidhib ha cunaan inta yar yihiin tan waxa weeye waa chocolatada la yiraahdo dark chocolate maskaxda oo u fiican tahay maskaxda aad bay uga shaqaysiidaa maskaxda way ku shaqaydaa maskaxdaadu aad bay u shaqaynaysaa xusuustaadu kor u koraysaa kore u qaada xusuusta maaragtay ilowshiyo ma yeelanaysid maasha Allah dark chocolate la yiraahdo dark chocolate ku qoran waa qaraar markaad cunaysid sonkortu waa ku yar tahay maalin kasta jab yar ka cun maasha Allah tabaarakallah kaal iska aragan ku yiri marka dark chocolate kana soo dhigo guriga meelo yar oo qabow hoose iska dhig ayar ayaa saa u jabinaysaa jabkaas oo kale waad yaraynaysaa waad cunaysaa maasha Allah hadhowna waad ka cadayaan ilkahayga siis kaaga gelgelin maasha Allah maskaxda ayay u fiican tahay maskaxday koridaa caruurta way u wanaagsan tahay dark chocolate inta chocolateada kale u soo gad lahayd dark chocolate u soo gad ha ku bartaan aroortii iskuulka markay u baxayaan ha cunaan waxa way dark chocolate maskaxda waxay ka dhigtaa baan ku yiri full maasha Allah si fiican maskaxda u shaqaynaysaa inaad catata u noqotid oo maskaxdaada isku dhex yaacdan way ka ilaalinay markii da'daadu ay sii weynaato geedkan hadda nagu soo socdo magaciisa waan ilaaway waa geedka sidaa u eg asagoo fresh iyo asagoo oil laga sameeyay way jiraan asagana maskaxda ayaa ku korta maskaxda ayuu u fiican yahay xusuusta maskaxda inaad xusuusatid oo maskaxdaadu ay fakarto aad ba uga qayb qaataa baa leeyahay
oo maskaxdaada wax isku xirxirto oo intaad fikirtid ay idea badan isku keento maskaxdaadu ayuu kana ka qayb qaataa marka oo fikradaha isku xirxirto hadba intaasoo idea marka geedkan waan ilaawo magaciisa iga raali noqda saasuu laakiin u egyahay raadiya ooyal iyadoo laga sameeyey marmar waxaa jirta dhaladii ooyalka ku jiro oo laamahaas ku dhex jiraan iyo mar saliidda keligeed ay tahay laakiin dhalada korkeeda ayuu ku sawiray marna iyadoo fareesha waaba kaasba nacnac ma aha nacnac hamoodnina waxaa ku xiga oo nagu soo socda sheeg spinach qudaartan spinachka la yiraahdo aad iyo aad bay u fiican tahay iyaduna saasaad iskaga mayraysaa wash maarta inaad iska dhaqdid waaye spinachka maalin kasta at least 3 caleemood ka cun salarka ku dhex jiro tamaatada avocadada iyo spinachka 3daas ba isku jarjaro maasha allah way is aqbalayaan waad yareeynaysaa saasaad salarka ugu korbitini marmar caruurta xitaa waa loogu dhex qasaa maadaama maarta aysan ka aqoonin ilmaha waxaa jira necab marka waxaa la sameeyaa salarka markaad eegday ku cunahayaan ama dadkaba familka markaad salarka u jarjaraysid asagana spinachkana waa lagu soo dhex jaraa laakiin marka hore waa in si fiican iskaga mayrtaa ilaahay idankiis marka maskaxda aad iyo aad u asna qayb weyn uga qaataa fitamiino fara badanna waa laga helaa fitamiin K oo kale marka ka faa'iideysta insha Allah bilkariim mirahan ayagana waan ilaaway laakiin masawirkoodan ku tusaya magacooda waa iga maqan yahay miraha qaraha oo cadcad moodaa mirahaas ayaguna aad iyo aad bay xagga maskaxda ugu fiican yihiin maskaxda way koriyaan kor bay u qaadaan xusuusta maskaxda maarta ayadana aad iyo aad ayay uga qayb qaataan maasha Allah ka faa'iideyso noocaasi u egyihiin meelaha miraha lagu gado ayay yaalaan hadda u fiirsatid meelahaas oo dhan ka fiiri marka waxaa nagu soo aadan ayagoo kale oo cagaar ah ayaguna isku meel lagu gado anigu waa arkay aad ay u macaan yihiin waliba markaad shaqaynaysid oo gaajeysan tahay waa la soo gataa waa kaas wuu jeedaa ayagoo cagaar ah bac yaray ku jiraan waa arka anigu meelaha maartay supermarketyada waaweyn iibiya ma karinaysid sidoodaad ku cunaysaa saxan baad ku soo shubanaysaa TV ku daawo caruurta ha kula cunaan ilmaha waxay waarad ku cunaan xataa haday xabad xataa afka ku gashaan way ku baranayaan miiska soo saar cuntada intaad karinaysid intaad cuntada dhadhami lahayd ayada sii cun markaad shaqada ka timaadid si aadan rooti iyo wax kale aadan u marsan ayagaas maarta ka bilow oo maarta ayaga ku bilow yaa maasha Allah maskaxda aad bay uga qayb qaataan maskaxda iyaguna full ay ka dhigaan fullba waxaa ku soo xiga coconut oil-ka aad iyo aad loo amaanay maskaxda uu u fiican yahay jirka uu u fiican yahay in jirka lagu daliigo bariiska lagu dalacdaa saliidda coconut oil-ka aad bay u caraf badan tahay waana ka raqiisan tahay saliid cadayda marka coconut oil-ka ha moogaanina ma aqaan wadankeena in laga helay in kale marka coconut oil-ka bariiska lagu dalacdaa mid xumo urayda waa in la keeni jirayo koombooyin ku jirta Soomaaliya marka nooc walbay leedahay midka cooking ay ku qoran tahay raashinka ku karso midna skin ku qoran mid waxa ku qoran skin and hair jirka iyo timaha mid waxa ku qoran cooking ayaa ku qoran cuntada lagu kariyaa marka coconut oil-ka ayagana maskaxda aad iyo aad ugu fiican tahay waxa kale waa huruud waxaanu ingiriiska tamriga lagu yiraahdo huruudda aad iyo aad u wanaagsan tahay maskaxda qayb weyn ka qaadataa xitaa waxa la damage haduu qofka maskaxda ka gaaro huruudda waa in loo badsho suugada loogu daro maraqa loogu daro caanaha loogu karkarsho waxa lagu leeyahay huruuddu every day qofku waa inuu wax ku darsado oo nusqaado ku darsado waa hada every day waxaas geesaha ka yaal waa iyadoo fresh ah ayadoo powder tuman oo budo ahna wataasa
marka huruudda iyo ku dhaafi weliba haddaad heli kartid huruudda orgaaniga ah midaas geedaha waa fresh korkaad ka fiiqfiiqaysaa waa yaryaraysanaysaa dhag waxaan ku iri salarkaad ku cunay haddaad doontid ama sideedaba u cun haddii kale ku shiid biyo iyo wax ku shiid cabitaanka ku shiid maasha allah haddii kale suugada ku dhex dar ayadoo bowdhar haddaa heli kartidna soo iibso maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad baa ayadana loo ammaanay maskaxda weliba qofka waxaa la damage doo maskaxda kasoo gaaro way kabtaa baa layidhi oo maaragtay maskaxda way dhaawacaas way ka kabtaa marka huruudda ha moogaanina guriga soo dhigo ha moogaan kan waxa weeye waa bocorkinagii bocoraan dhihi jirna maskaxda aad u koriyaa waa u fiican yahay waa maasha allah waa laga helay waa bocorkii mirahaad iska goynaysaa korkaad ka fiiqee suugada caruurta ugu darsa soomaaliya suugadan ku darsan jirna maasha allah tabaaraka allah waa garata marka waa cuntada maskaxda korida maskaxda ilaalisa madaxa maaragtay neerbayaalkiisa ilaalisa baruurta ka difaacda xitaa waxaa la yidhi wuxuu sameeyaa oo kale fat reduce macnaha cayilka wuu dhimaa maasha allah bocorkan cayilka wuu dhimaa haddaad cuntada ku cuntid maasha allah suugadu markay bislaato ayaa lagu daraa dab badan isagoo uma baahna dabka maaragta wuu dilayaa cuntada markay suugadu ku bislaato dusha oga dar ku dabool ma garat maasha allah qudaartan kaloo nagu soo socota alla magaceeda iyadana waan ilaa muxuu ahaa wignet miyuu ahaa ilaa magacii waa taas mujeeda sida maskaxdii u galgaloolanta maskaxdayba u egtaaba tano maasha allah waa qaali wadankan baakad yaray ku jirtaa 3 baan iyo 4 baan ayaa la gadaa iyo 2 baan iyo xoogaa marka guriga soo dhigo waxaa gaar ahaan lagu darsadaa keligeedna waad cuni kartaa dab lama saaro sideedaa lagu cunaa talaagad lama geliyo qaanadaha la gashadaa kijada waxaad samaynaysaa xabadna waad u cuni kartaa ama intaad jejebisida waxaad samaynaysaa boorashka oo kale subaxdii dusha oga darso qof weyn hadduu kuu joogo waarida dusha oga dar waxaan kuri maskaxdaadu maasha allah qofka hadduu wixii maskaxda u fiican jirkana waa u fiican yihiin maskaxdaada haddaad rabtid inaad maaragtay aad kor u qaadid oon xusuustu kaa tegin oo maskaxdaadu ay si fiican kuugu shaqaydo xitaa waxay kala oo la yiri dadka imtixaanada gelaya caruurta markay imtixaanada gelida waa u fiican yahay baalkaas inay cunaan ama adiga weyn aad imtixaan gelaysid maskaxdaada waxaan ku iri iyo concentrate-ka ayuu aad u hagaajinaa concentrate-ka waxa waaye wixii inaad niyad u haysid maskaxdaadii soo jeedo oo maskaxdaada caajis aysan ku jirin indhuhu ku xanuunayn boqol maaragtay tashwiish aysan kugu furnayn ma garatay maskaxdaada concentrate-ka ayuu hagaajinayaa maasha allah isaguna boorashkaa lagu darsadaa witibigiskaa lagu darsadaa maxaad tiraahday keligiisaa la cunaa marka kaasna yaa la moogaan waa qudaarta saa u eg maasha allah magaceeda hadda iyadana jiirow ii gala maxaad garanaysaa laakiin baakadiyay ku xiran tahay meelaha maaragtay cuntada qalqalalan lagu gado ayay taallaa qaybta maaragtay supermarketada qaybta cuntada qalalan oo maaragtay lagu gado lowska iyo kan waa garanaysaa waa blueberry iyo raspberry waxaa ka maqan strawberry ilmo beri oo dhan ayaguna maskaxda waa u fiicanta maskaxda aaday u koriyaan weliba dumarka aad ay ugu fiican yihiin gurigaaga soo dhigo hadday maalinkaa dhammaato maalinta labaad shoobinka kusoo dir caanuhu markay kaa dhammaadaanba soo gado ayadana caanaha la soo gado ma garad caanuhu markay dhammaadaanba ayaday caanaha isku mar la soo gad si aad u xusuusatid blueberry raspberry iyo strawberry saddexdaasba maasha allah ayadana maskaxda cuntada maskaxda ayay ka mid tahay oo maskaxda iyo bareenka korida hagaajida dhasiiska kala dagaalanta kor u qaada maasha allah 3 qaybood waxa weeye waa aan ii sheeg kaabash fiyoore midka cad oo kora la yiraahdo kaabash fiyoore
kan hoosoo yaryarka ah asagana magaciisa ma haayo waa kaabashka iyo asna yaryar bacuu ku jiraa saas uu egay pictureka waad arkaysaa badanaa christmaska aad usoo dhigaan dukaamada christmaska ay cunaan christmas nightka iyo ayay aad u cunaan gaaladu iyo maxaad tiraahday blue wuxuu ahaa cranberry mu ahaa iyo midkaa weyn oo cagaarka oo geedka maarata cagaarka u eg saddexdaasba waxaad samaynaysaa dab ma saari dabka waad saari laakiin biyo ma ku shubaysid waad yara jeexjeexaysaa waad yaryaraynay intaad cuni kartid digsigaad ku ridaysaa dabkaad u gaabinaysaa haddaad doontid wuumka digsiyaad biyo ku shubaysaa waxaad samaynaysaa dabkaad yara ku shida laba lambar saddexaad u geynaysaa digsi kalaad ku ridaysaa waa ku uuminaysaa maasha allah ayadana maskaxda aad iyo aad ugu fiicanta hamoogaan yaa kaabash fiyoore iyo maaragtay alla magaciisa waxuu iigu gambiyey kan kaa yaro oo cagaarka ah oo geedka u eg laakiin picturekaad ka arkaysaa insha allah iyo kuwaas yararka waa 3 qaybood waad isku uuminaysaa ayagana dabkaad u gaabinay uumkaas ayay ku bislaanayaan hadhow liin dhanaan yaraad kuma joojinaysaa cuntada markaa cunaysaad geesaha saa uga saaranaysaa maasha allah ama sidooda waad ku cunaysaa maasha allah tabaarakallah yaa ka fiican marka ayagana isbuuciiba mar soo gado kaa maaragtay waxa weeye waxyaalaha maskaxda koriya weyga maskaxda u sawiran yihiin ma ujeedaa sida maskaxda u laalaaban yihiin marka ka faa'iidaysta insha allah caruurta ha bartaan ha loo soo iibiyo adinku soo iibsada hooyooyin iyo aabbaayinba marka taasna waa loo bagay marka waa kaasaa maasha allah picturekan waa nagu dheeraaday marka waxa weeye aad iyo aad u fiican yahay ha moogaanina walaalayaal maskaxdiina ka shaqaysiiya waxaa nagu soo socda salmanka waa fiishka salmanka la yiraahdo aad iyo aad waxay oil ugu jirtaa maskaxda waxaa aad buu uga shaqaysiiyaa fasta weliba vitamin D-gana waa laga helaa waa kaasaa waa fish oil waa fiishka oilka ah lafana male waa alman salman marka salmanka laga faa'iidaysta asna waxaad samayn kartaa digirta intaad karidid markay bislaato digirtu ayaa tamaatada cayriinka ah lagu daraa basal baa lagu daraa markaad ku dartid may basasha intaada ku darin oo digirtu kuu bislaato waxaa ku daraysaa salmanka ku dhex riday dabka u gaabinaysaa 20 daqiiqo bacda soo noqonaysaa waxaa ku daray basal iyo tamaatada cayriinkeeda kuu jarjarneed ama yaanyada saa u taqaanid hadhow waad isku qase digirtii oo bisil ama cambuulo saa u taqaanid salmankii basashii yaanyadii maasha allah tabaarakallah macaanka ku erin iskama day karaysid ha moogaan salmanka ayuu ku dhaafin isbuuc haddaa cuntid isbuuc ka naso haddaa rabtid isbuuca kale haddana isbuucii wiigii 2 goor cun yaa mar digir ku darso mar rooti dhex gasho haddaa rabtid rootigana dhex gashada digsi waa la mayraa digsiga lagu ridaa waa lagu daboolaa dabka loo gaabshaa markaas wuxuu noqonaa sida maaragtay tuunada camal oo kale saa intuu iskugu bislaado maasha allah markaasoo kale rootiga lagu dhex cunaa waxaa kaloo la yidhi digirtaas anigu waa ku dar waa arka waxaa kale digiruhu waa badan yihiin digir gaduudo digir cadcad digir madow ayaa jirta waa tana digirtan madow waxaa la yidhi digirahoo dhan ayadaa ugu fitamiin badan waa digirta maskaxdayba gaar u tahaba ujeedaa wax walba oo waxaa lagu leeyahay madow waxa kale waa ka fitamiin badan yihiin waana ka wanaagsan yihiin marka digirtaas madow ha laga faa'iidaysto maskaxday gaar u tahay karso waaridka hadday joogaan u kari
adigu karso maxaad tiraahday carruurta wixii kuu cunahaya ha kuu cunaan gabaray adna cun digirtaas waxaan ku iri labadii maalmoodba mar cun ilaahay amarka anigu maba soo gadi jirin digirta midda gaduudana badan iska karsadaan laakiin meel baan ka dhageystay maaragtay nin dhakhtar oo ka sheekeynaya oo yiri digiraha waxa ugu fitamiin badan digirta madow oo weliba maskaxda xaggeeda best food for brain ayaaba ku qorneed marka wuxuu yiri digirta balaaga ah bareenka aad iyo aad ayay ugu fiicanta maskaxda kor u qaadaa wuxuu yiri dhisiiska xitaa way ka ilaalisaa maskaxda qofka bini'aadanka maskaxda wuxuu yiri way garow garayda way koraysaa wuxuu yiri waayarada maskaxda ayay hagaajidaa wuxuu yiri connection ayay samaynaysaa waxbay saas waayaray diree hooyo maskaxdu jirkii kale wuxuu yiri waayarada ay maaragtay u diraysaa sida maaragtay telefoonka uu u gudbinayo codkoo kale ayay wuxuu yiri sidaas si xoog leh ayay ugu gudbinaysaa marka maskaxdeena iyo jirkeena oo dhan ilaahay ha noo caafiyo marka digirtaas ayadana ha moogaanina hala soo gato guryaha hala soo dhigto waxaa la sameeyaa waa la mayraa dabka lagu shubaa waa la iska gaabshaa daaseed howlahaga la iska qabsadaa maanta dhama iska bislaane weliba maalmaha aad guriga joogtada la karshaa markaad kuusaa kugu karsanto waxaad ka cunti mahana wixii kale saxamo yaryara inta lagu shuba caagada markay qabowdaa talaagada la gashadaa markaasaa maalinba in yar la cunaa ama labadii maalmood mar maasha allah aad iyo aad u mahadsantiin jazaaka allahu khayr ka faa'iidaysta waxaad ka fahanteen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu